السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالقة وركا كينا ساكا أراد بيكشد انتهي ساكا وأرد ولا السعودة ساكا بإذن الله الرحمن إسلانتي وكل جيد وساكا رعلينيس dadka halkaas soo socda waa ordayeen orod baa lagu jira orod ma fahanteen marka adigoon ordinba hooyo meelaha baska iyo tareenada iyo loo raacay marka waxaas oo dhan ka timaado waa inaad isbartaa lugta haddaan xasuustay waxaan soo socday muddo hadda adigu 10 daqiiqo waan soo lugeynayay moobilkayguna waa iska sii damayay waxaan moodayay inaan aqalkii kaga imid wallahi hadda baan idhi war ma duubtida asxaabtii khayrka qabtay wadada halka yar dhinaca maaragtay dhinacan waa dhinacii baaskiilka meeshan waa la dhisayaa halka waa la dhisayaa wayna wadada baaskiilka maraa laakiinse kolna waan yara cararaya orod baan saa u yara sameynaya kolna wadadana waa wadadii baaskiilka wadadaas la dhisayaa wallahi carar baa sheegaysaa markaad socodka kaliya markaad samayso ayay naftaadu waxay dareemaysaa hooyo raaxo marka please waxaan idinka baryayaa dadka qurbaha ku jooga baan leeyahay qaxoontiga iyo kuwa ku dhashayba socodka badiya meeshan dalkiini maaha waxaan ku dhigay nimcadu taale barwaaqadu taalay ma fahanteen marka inta waxaan ku yiri xanuunadii ku sii kordhin ilaahay naga ilaaliyo xanuunada meelahan laga qaade rabbiga raxmaanka hayna xafido saaka waxa weeye bishu waxa weeye saaka waa 11 insha Allah biidmillaah arrahmaan daanan qaldaynin waa subax arbaca sidaan filayo waa mid fooq saaka halkana waa la dhisayaa waxaan aadayaa ballan haddii rabbiga raxmaanka raali ka ahaado wadadaydaasaan iska socdaade alxamdulillaah rabbil caalamiin qof kasta wuu cararayaa laakiin cararka xaggan baa iiga dhow waa inaan tan kala sugaa insha Allah biidmillaah raxmaan halkaa maraa insha Allah markaa socodka hala badiyo hooyo kalsoonidaada dhismaysa araggaaga dhismaaya maskaxdaada dhismaysa si kasta ay ahaato wada dhismaysa insha Allah biidmillaah raxmaan saaka waxaan jeclaystay inaan idinla qaybsado marmar hooyo naftaada ka soo yara dhaadhicina jawi yar oo saxan kaliya gasho insha Allah biidmillaah raxmaan inta socodka ku guda jirtana aad arimahaaga si kala dabalato insha Allah wixii ku yaalay iyo aad waxaan ku yiri arimahaaga iska sii wadata insha Allah biidmillaah raxmaan ku dadaal hooyo ku dadaal saasaan idin dardaarmaya baan ku waa dardaaran maanta haddaan dhinto aan idinka horeeyo naftu meel ay mar ilaahay baa og yaa qofna ma oga waxaan ku Yurubtiina waa laga dayrinayaayo xanuun baa laga hordaya coronavirus la yiraahdo coronaviruska ilaahay baa inaga qaban ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala wuu joogaa muslim iyo gaalba ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa wixii uu asiibay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qabto inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala rabbiga raxmaanka quwadda leh ee qaniga inuu ina amaansado meel kasta inuu dunida caladeeda ka joognaba inaga iyo ummadda islaamka ah oo dhan gaaladana intii uu haysto dadka aynu ku dhex noolnahay dadka magangaliyada ina siiyay ixtiraam iyo qadarin bay inaga mudan yihiin allana ha soo hadeeyo dadka gaaladu waa dadka muslimiinta qaar fara badan wallahi ka arxan fiican ka arxan wanaagsan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha soo hadeeyo xaqa ha ku hanuuniyo inaad habaarto ma aha inaad tiraahdo cudur Allah ha mariyo anaga nagama muxuu hayay gayaano dawa dadkaan waxaan ku yiri intaan soo cararnay waxaan ku yiri halkaasna keentay naftu iyo waxaan ku yiri qadarta rabbi maalin ismaan lahayn halkaasaad Yurubad xilliga joogaysaad video ku duubaysaa wallahi laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qoray waxa la yiri
meeshay doontaba ha noqotee hadda naftaydu meelay ku dhiman allahu aclam laakiin mar kasta waxaan jecelahay inaan ku dhinto haddaan dalkayga hooyo ku dhiman waayo inuu allah subxaana watacaala xashkaygu dilo intaasaan allah subxaana watacaala ka baryaa mar kasta baryadaydu ay tahay weli waan socdaa waan iska carari lahaaye idinkaan idinla yara hadlayaa markaa waxaan idin leeyahay horta mar kastood guriga ka soo baxayso ducada guriga lagaga soo baxo ha ilaabin hooyo teeda kale ee waxyaabo aad socod ku tagi lahayd inaad bas xun baan soo raaci lahaa hadda imika halkaa 10 maxado aan ku soo jiri lahaa 10ka maxado dhakhtarkana waxa la furaya aan ku sii socdo 9 buura aba la furaya insha Allah hadeerna aan saacada fiiriyo waa 9 iyo 40 waxaan gurigii ka soo baxay 8 iyo dhowr iyo 10 ayaan ka soo baxay inta wadadan ku soo jir alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh walina ma gaadhin marka waxaan ku leeyahay hooyo socodku waa adiga waa ku muhiim naftaada waa ku muhiim anigu inaan meelaha ku qabqabto uma soo bixin laakiin intaan waxaan isiri inta yar uga sii faa'iidee noloshaadana waxaad wax kaga bedeli kartaa hooyo subaxii in aad ku quraacato quraac caafimaadka u fiican haddaad weydo oo wax ku qanciyo aad weydo oo ay ka khalkhasho quraacduna wax ka xun ma jiro insha Allah biidmillaah rahmaan waan idin sheer garayn doonaa insha Allah biidmillaah rahmaan asxaabtayda qaaliga ah waxaan leeyahay ma hadi korkiina ha ahaato saadii taageeraysan Allah subhanahu wa ta'ala haydin taageero kuwi adduunyo aakhiraba ku walaaltinimo ba Allah inaga dhigo kuwi sharka iska qabta khayrkana isku booriyo Allah inaga dhigo dhamaantiinba kulli waan iska dhaway hadda anigu qof ma joojiyo kalsooni baan naftayda ka qabaa haday shaaric noqoto iyo haday guri noqotaba naftayda inaan dadka ku waaniyaan jecelahay ma fahantay marka naftaada ku kalsoono insha Allah dhakhtarkii sidaan tilmaamta ku hayay halkan baa loo yara laabay insha Allah goglahan ku soo gashaday marka insha Allah meeshu ii tilmaamayay hadda waxba kama harin meesha gaariyada lagu barto faaqa shuulaha hadda ka yara laabaya insha Allah biidmillaah rahmaan waxaan idin leeyahay ma hadi korkiina ha ahaato insha Allah biidmillaah rahmaan halkan baan ka laabayaa biidmillaah rahmaan waa guriyahan baan filayaa insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo jannada oo inoo balana tabaaraka rahmaan hadduu raali ka ahaado waa maanta iyo Faadumo oo todobadii soo xirxirat hadeerna ka midho dhalisay jeedooyinkeedii insha Allah bye bye